Nibiriga buluugu waa noolaha ugu weyn aduunka oo dhan. Wuxuu gaadhayaa 100 feet oo u dhigma 15 xamuula, ballaciisuna waa 30 feet oo u dhigma 3 dinosaur. Xaddiga socod ee uu sameeyaa waa mid aad u gaaban sababtoo ah aad buu u weyn yahay, oo waa mid ku xiran siiskiisa. Joogiisuna waa maroodiga oo 2 jeer la isku daray, halka sare iyo halka hooseba labada dhinac marka laga eego. Blue whales have one of the loudest calls in the animal kingdom. Guuxiisu qiyaas ahaan wuxuu gaadhayaa 188 decibel, dhanka diyaaradahana 140 diyaaradood iyo 100 cagaf-cagaf ah. Socodka uu socdo badda gudaheeda waxaa laga soo dareemaa masaafad aad u fog, mararka qaarna waxa uu sameeyaa inuu maraakiibta gebigeedaba uu afrogo. A blue whale's age can be determined by its earwax. About every 6 months, a new layer of earwax forms inside a whale's ear canal. 6 biloodba waxaa ku korodha qof bini'aadam dhammaystiran oo kale. Si kastaba ha ahaatee, 12 bilood ama halkii sano, hal geed jirid ah oo dhammaystiran ayaa ku soo biirta. Kuwa dhexe daadoodu waxay gaadhaa 80 ilaa 90 sano, kuwa ugu waaweyna daadoodu waxay gaadhaa 110 sano. Blue whales can eat 4 tons of food a day. Cuntada ay maalintii cunaan waxa ay la mid tahay iyagoo cunay maroodiga Afrikada ku nool. Waxa badda ku nool gebi kalluunka markuu afka kaliya uu kala qaado ayuu gebi waxa badda ku nool oo dhan uu liqayaa. Afkiisuna maaha afkaan hore u naqaanay ee waa afka tuunbada oo kale, kaasi oo u qaybsama 2 qaybood, qaybta biyaha iyo qaybta adkaha, mana laha wax ilko ah. Whale baleen was often used in 19th century fashion. Qarnigii 19aad waxaa loo adeegsan jiray nooca labiska ugu qaalisan dalalka Yurubta. Sidoo kalena faa'iidadu waqtiga uu lahaa jirkiisa iyo lafiisa inta kaleba waxa ay ahayd in dumarka madaxda ugu sarsareeya ee dalalkaasi ay alaabaha ugu qaalisanaysa laga sameeyo iibsan jireen. waagaa dadkaasina ugaadhsigiisa aad bay u badin jireen oo isticmaalkiisa ayaa aad ugu daruuri ahaa. Alaabta ugu qaalisan iyo xoolaha noolaha ugu qaalisan isagu ahaa. Iminkadan waxaa la og yahay inayna faa'iidadiisii kala go'in oo ilaa waqti xaadirkan dadka jooga ay isagu ugaadhsadaan.